hablaha Soomaaliyeed ma hooyooyinka Soomaaliyeed khayr Allah siiyo waxyaalahan kula talinaya waxa kamid ah boodiyahu waa meesha ugu daran ay sokorta gasho sokortan lagu sheegaya waxay gashaa halkan halkaasay gashaa caloosha ma gasho halkan ma gasho xaggaana ma gasho halkaasay fadhidaa waad baan idin salaamay waa walaalkiin mahad halkan aan jimicsanay saacado markaasaan isiri bal in yar maad kala faa'iidaysataan aad ka nasataan siyaasaddan iyo qabyaaladan iyadu waa shay ah soo yaacayda marka taas ay u kaliftay marka inaan live soo galo aad baan idin salaamaya dhammaantiinba soo dhawaada maxaad haysaan may fiican tihiin minankiinni waaye jimicsigan aan ku jiray maanta waxaan inta badan xoogga saarayay lugaha habka loo jimicsado iyo maaragtay baalkan anigu inta badan berwo ma qaado iyo inaan bal ka wada faa'iidaysano Soomaalida maxay la soo gudan yihiin maxaa Soomaalida soo guday waxaad arkaysaa wadaage 40 jir inan yar ah oo soo gudanaya maxaa guday Soomaalida maxay sidan u istaagi waayeen marta dib ma bala calool bah lahaado ama yu lahaanin taasi waxay ku xiran tahay sidoo qofku iskaga shaqeeyo laakiin ta aan doonayo inaan ka hadalnaa waxay tahay maxaa Soomaalida guday marka 40 soo gaaro oo sidan u soo yara samaysmaan maxaa dhacay usan ugu toosi waay iyada naftigeeda waxaa la sameeyaa exercise marka saacadii barbaan ku jiray waxaan isiri bal qabyaaladan iyo siyaasaddan waa shay soo yaacayda kaga yara nasta moogta marka inta badan maanta waxaan xoogga saarayay lugaha gaar ahaan bowdyaha iyo kubka dadkaynu waan ognaho dee Soomaalidu moogta meel way dhisi karaan meelahan laakiin waxaan ugu adag waana jiinkeena xogaa xaggan hoose lugaha ayaa ugu adag in la taago waan ognahay inay dhuuxu yar yahay laakiin waxaad samayn kartaa meeshan waad exercise baad ku samayn kartaa haddaad eegto ku tusaya wax kale ma samaynaysid sidaas aad isku toosinaysaa then in adigoo jilibkana ka dhigaya ayaad soo qabanaysa marka waxa weeye kan iyo kubkan uu buuxsamaya dib baad u noqonaysa haddana waad soo noqonaysa dib baad u noqonaysa waad soo noqonaysa dib baad u noqonaysa haddana ka kale jilibkana halkan dhig markaysa marka kana buuxsamaya adkaanaya qasab maaha inuu weynaado laakiin cufidda iyo socodka muhiima tan kale aan doonayo waxa weeye wax kale ma samaynaysid mar halkan aad imanaysaa adoo slow ah ayaad wadaysaa ilaa 50 ayaad wadaysaa marka labadan ayaa buuxsamaya tan kale aan idinku daray waxa weeye why dadkeenu Soomaalida aan u soo gudanaa waxaa jira xarag halkan la saarayo oo maaragtay haddaad ka iibsan karta Amazon oo gudan tahay exercise ku samayn kartay laakiin markaad soconayso saacadii barban talingareynayo waan daalanahay moogta markaad soconayso waxa muhiim ah waa qasab qofku inuu biyo haysto markaad soconayso waxa muhiim ah inaad madaxaaga iyo jirkaaga eeganka ka fikirto markaad soconayso fikir maxaad ka fikiraysaa socodka marka waxaad samaynaysaa adoo fikiraya halkan waad yara taagaysaa maaha inaad sidaa iyo dee beladan sida loo socda iyo ma ka hadlaya aniga waxaan ka hadlayaa slow gacmahaagu ha iska khafiif ahaadaan laakiin labadan soo yara taag labadan kan iyo kanna kor taag kadibna caadi u soco maxaa dhacay caadi baad soconaysa 50 plus saaxiibadayda 50 pluska ah ee soo godanayo kan ka fikir labadan taag kadibna aayar u soco taageerkana labadan isu keenaysaa markaa caadi baad u soconaysa adigoo labadan isu keenaya laakiin haddaad sidaa u socoto maanta in islaawdo ood sheekaynayso wax cunayso islaawayso sidaa u soconayso waxay keenaysaa markan labadan inay soo gotaan halkanna uu leeco marka siduu u leecin mar walba
exercise baad ku samayn kartaa adigoo soo sinay labada lugood faraha waxaad samaynaysaa maanta o dhan ilaa 50 marir ayaad saa u taagnaanaysa kanna waad yara taagaysa haddana waad soo celinaysa kubkana taagmaya wuxuu kuu celinayaa markaa jirka oo dhan ayuu ku celinaya hablaha Soomaaliyeed ma hooyooyinka Soomaaliyeed khayr Allah siiyo waxyaalahan kula talinaya waxaa ka mid ah please hooyoy haddaad jiro salaan degan tahay dabaqa shanaad ama degan tahay dabaqa afaraad uu jiro lift ama hays afka Norwejiga ha raaci waa iga tago maalintii salaanka kor salaanka markaad korto bowdihu waa meesha ugu daran ee sokorta gasho sokortan lagu sheegaya waxay gashaa halkan lisee halkaasay gashaa caloosha ma gasho halkan ma gasho xaggaanna ma gasho halkaasay fadhidaa halkaa hadday fadhiisato waxaad u samayn kartaa inaad salaanka korto maalintii mar jaranjarada kor buuraha kor yes waan dareemi karaa inaad daalayso waana muhiim daalidda hadaasi wuxuu soconayaa sokor badan baa kaa dhacaysa marka exercise-ka aad samaynaysaa waa kan waxaad kaloo isku dayaysaa imika u fiirso dadkeenna horena waan u sheegay waddankii markaad tagtid suuliyada maaragtay oo musqush kan dhulka yaalla kan lagu fadhiista ahayn dadkeenna qurbuhu ma wada samayn karaan marka maxaa ku samayn kartaa exercise baad ku bilaabaysa intan keliyaad keenaysa kadibna waad soconaysa aniga maalinkastoo dhan waan fadhin karaa haddaan doonayo maasha allah haddana waad kacaysa waad fadhinaysa marka labadana adkaanaya boodyahan ayaa adkaanaya halkaa markay ku adkaadaanna waxa weeye so easy ku celinaya waxaan arkay raalinahaada qof suuligu gelaya xarig baa loo qabanayaa yacni ma laha kursigii lagu fadhiyay imagine xarig lagu hayo ood fadhido ceeb ka weyn maa jirta marka hadda aan isbarno exercise fariiso labada si oo adkaadaan maanta dhan sidaa ahaa kac inta ku bilow xanuun weeye marka dambe caadi ud fariisanaysa anigu waan fadhin karaa intaad doonayo ayaa fadhin karaa garanaysa ta kale muhiimka waxa weeye inaad in yar intaa keliya haddaad maantana sidaa tiraahdo soo noqoto sidaa tiraahdo soo noqoto sidaa tiraahdo haddana midig meel haddaad haysato yaro dheer ku isticmaal kanaa adkaanaya kanaa ku adkaanaya 100 haddaad samayso maanta dhan bas eg uma baahnid biro la qaado iyo adduunye la qaadaba uma baahnid walaalkiin mahad intaasaan doonayay inaad la qaybsado ka nastaa siyaasaddan iyo qabyaaladdan idin waashay soo yaacayda haddaan sii baxayay marka waa muhiim inaad biyahaaga imika saacad iyo bar odayga intaas laagay saacaddu imisay maraysa hadda waxaa laga yaabaa inay 10kii dhaaftay I don't know 8 baa nimid maasha allah meesha ayaan ku tarangareeyaa quruxda badan leh free aniguna maxaa sameeyey free ville ayaan ugu shaqeeyaa masaxaadda maydhidda ka warhaynta rididda miisaska waxaasoo dhani waa shaqadayda anna halkanaa la isiiyey marka haddaad naftaada caawiso dadka caawiso caawimaadanaad helaysa adna maasha allah garanaysa waxaa ku dhegan 100 branch baa ku dhagaatay programmadii baad ka daawanaysaa halkaan hadda ay geeyo ku program mar kale ka naso siyaasadda oo laakiin mahad cabdullaahi 50 plus ya marka dadkeena saaxiibadayda ah ee foodhiga ah waxaan arkay la kulmay nin igu yiri 40 baa jira ma shaqayn karo oo moodid 20 sano ka weyn israalaada waxaad moodaa in uu 75 80 maxaa kugu dhacay raf garanaysa garkan iyo waxaan kama hadlaya aniga waxaan ka hadlayaa physical iyo mentally uu raf u yahay maxaa kugu dhacay ma shaqayn karo 40 baan jira life began 40 alxamdulillah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam
wacyiga waxdiga waxa lagu soo dejiyey 40 jir isagoo young man nin yar qurux badan ma garanaysa marka 40 waa ina yar waa markuu maskaxdaadu fit tahay jaamacadda la bilaabaa waxaasoo dhan waa muhiim laakiin haddaad tiraahdo 40 baa jira ya annagii 20 sano kaan weynayn baad niyadda naga jibinaysa soo niyadda noo dhis 40 waa ina yar ma garanaysa haddii kale dee dagaal baanu qaadaynaa moogta wadaagan intaas waa kaftan waa walaalkiin mahad cabdulle oo doonaya inaan iswada dhiiri gelino sheekay shalay aan pagekayga haddaad tagto iminka Turbashaash family ama mahad cabdulle ayaa waxaan soo qoray nin maaragtay Soomaaliyeed khayr Allah siiyo oo kula kulmay magaaladan oo sir caawi waa aflagaadii igu bedelay runtii soo akhriya waad arki doontaan qurux iyo dhiirigelin baan ka sii qaaday oo qofku markaa individual anu waxaan u qiyaasaa qofka individual collective maaragtay dadkoo dhan iskuma qabto qofkaa khaldan unba khaldan laakiin dadkana waxaad arkaysaa mahad hadduu khaldamo inankiisaa khaldan safiya khaldan bilaa khaldamaya walaalkay xasan yuusuf safi wuxuu dhan baa la isku daraya kadibna waa la sii weynaynayaa ilma adeeraday abtiyaday kadibna whole the family ayaa la soo aflagaadaynaya weligaa waxaad barataa qofkaa kaa gardaran keliya inaad eedda saarto wax kaloo la bartaa af daboolan dahab waxaa looga adkaadaa kan ood ka adkaato awii soo aflagaadeeyey waan qoslay waan salaamay waan iskaga tegay waa kan ood ka adkaato keliya beriiskuma siiyo isma arkaysaa nasiib wanaag facebookan waxaa loo sameeyey ninka sameeyey feer buu sameeyo block wuxuu sameeyey feer qof baa kusoo aflagaadeynaya ku aqoon aadan shilin meel wada fariisan lahayn koob shaah maydooda cabteen ayaa halkan ku kulmaysaa nin maskaxda ka xanuunsan nin qosol badan family qurux badan ka yimid reer meelo qurux badan lagu soo tababaray reer wada ilaahay ogyahay xaaladooda waxaasoo dhan baa isku meel lagu keenaya waxaad kaloo ogaanaysaa labadan qof ee isguursanaya laba meelood ka kala yimaadeen laga yaabaa aniga ummad wada caraysan wada dhib badan inaan ka yimid gabadha maaradka xaaska ama guursan doona ama xaaskayga inay ka timid dad wada qurux badan oo si qurux badan loo soo kordhiyey kala duwanaanshahaas waa qurux in la isku adkaysto agree to disagree taasaa muhiima agree to disagree marka waxa weeye in aad fahanto haddaad force ku samayso qofkan tiraahdo sidan anigu aan doonayaan samay waa inaad samaysaa isku meel kama iman seed u qasbi kartaa qof sida adigu aad doonaysid ma noqon karto qofna ma noqon karo laakiin meel dhexe noloshu waa balance meel dhexe la iskugu imanaya aad baan idiin salaamayaa dad badan oo saxaabnaa halkan iiga muuqda qaybiye barnaamijkan haddaad siraysaan bulshada ee wafacayaa jimicsigana nimankeenana hoy alaabtan iga ilaaliya dee aad soo godanaysaan baasha naga toosiya oo markaad soconaysaan labadana ka soco caadi u soco waa maxay waxaan aad isgodaysaa baasha taag xabadka taag kamo yaan baan wadanahay insha allah haddii ilaahay dhimashadu waa xaggeeda laakiin waxaan doonayaa 85 markaan ahay inaan weli labadan uu taagan yahay that's my plan caawan dhiman karaa biraan dhiman karaa accident baa dhici kara waxyaala fara badan baa dhici kara my plan waxa weeye 85 markaan jiro inaan ul haysano weli aan taaganahay baashan aan gooyo maasha allah way sii socotaa hadda try marka exercise-ka iyo jimicsigii baan dib u soo bilaabay maxaa yeelay waxaan doonayaa ilaahay hadduu nafti ii daayo sanado badan inaan suuliga keligay fadhiisan karo oon ka kici karo oon fadhiisan karo without aan ulla ii qaban moogti labadan exercise ha ka fikirin waxaad kaloo ka fikirtaa inaad maaragtay mar walba labadan taagto labadan dhisto ha yaraadaan dhib ma leh muhiimaddu waxa weeye inuu adag yahay walaalkiin mahad cabdulle waan idin salaamayaa ka nasta siyaasadda sabti wanaagsan baa soo galaysa maantana waa maalin jimca maalintuna ha ku wacnaato heer baan iska ognahay keep smile